السلام عليكم وسلامتي والعيال وسو dhawaada xaqiiqooyin xiiso leh wax badan waan maqashay shirkadda BMW ee gawaarida oo aad ku aragtay filimada heesaha oo aad ay ku dhex muuqato halkan kaga boga taariikhdeeda waa maxay foomka buuxa ee BMW waa magac loo jeedo British Motoring Work ama Bavarian Motoring Work ama shirkadda motorada ee shaqada. BMW waa shirkad Germany ah oo madax bannaan oo soo saarta gawaarida iyo motorada diyaaradaha iyo sidoo kale mootooyinka. Waa shirkadda ugu weyn ee gawaarida samaysa, waana shirkadda waalidka ee BMW Mini iyo noocyada Rolls-Royce iyada ayaa dhashay. Astaanta midabka buluugga iyo caddaanka oo soo martay isbedel badan, haddana waxaa sida saxda ah qalinka loogu duugay 1917. marka hore waxay ahaayeen 3 shirkadood oo markii dambe ku midoobay xarfaha saddexda ah ee BMW, waxayna kala ahaayeen shirkadaha Raab Motoring Work, British Flux iyo Automobile. taariikhda magaca oo asal ahaan ka bilaabatay Raab Motoring Work oo soo saarta mashiinka diyaaradaha xaqiiqii gawaarida ugu raaxda badan waxay ka dhasheen shirkadda motorada ee diyaaradaha. dadka aasaasay ama waalidiinta waxaa la dhahaa Franz Joseph, Karl Raab iyo Camillo. waa dib u eegistii taariikhda BMW. ha u malaynin in daqiiqad keliya ay magaca qoys ku noqotay. waxay soo martay kor u kaca hoos u dhac dhaqaale iyo iibka oo aan xawli ahayn. in hanashada dhabta la gaari karo waxay ahayd wax ka badan 100 sano ka hor. asal ahaan BMW taariikhda markay ahayd 1913 ayaa laga aasaasay agagaarka Munich, halka oo gurigeeda ah ilaa hadda. Raab Motoring Work wuxuu qandaraas la galay Austrian Dimich si uu u dhiso motorada V12 oo loogu talagalay duulimaadka diyaaradaha caalamiga. kadib shirkaddu waxay aragtay in guul xawaare sare ku socoto, laakiin Raab ayaa iska casilay shaqada kadib dhibaato dhaqaale awgeed 1916. kadib wixii intaa ka dambeeyay 2 nin oo Australian ah ayaa la wareegay. wuxuu ahaa wax soo saarkeeda ugu horreeyay 6 diyaaradood oo toos ah. 1923 samayntii mootadeedii ugu horreysay ee shirkadda iyadoo u soo jiiday magac jabisayna record 1923 ilaa 1937 oo aan la jebin. 6 sano kadib oo ay ahayd taariikhdu 1929 waa samayntii gaarigeeda ugu horreeyay oo magaciisu ahaa BMW 315. waxay sii waday samaynta gawaarida sanadku markuu ahaa 1952 oo ay soo saartay BMW 501. 1968 waxay bilaabeen saddexyadoodii ugu waaweynaa, waxayna kala ahaayeen 2500, 2800 iyo Bavarian Mareykan. 1971 xarunteeda Munich dhismaha oo cajiib ah u gaarna ah iyada samaysan qaab 4 dhulmo ayay dhisatay ilaa haddana u taagan. waxay u kicintay sanadkii 1994 in ay wax soo saar ka bilowdo meel ka baxsan Germany sida Oxford, Koonfurta Afrika iyo meelo badan. isla sanadkaas waxaa ku dhacay khasaare weyn kadib gadashada magaca Grover Groups oo ay khasaartay lacag $4 bilyan. wadada guusha 2006 waxay sii daysay motorkeedii ugu horreeyay ee ku shaqeeya batrool. tani waxay ahayd waqtigii inta badan ay motorada isku beddelayeen turbo. 2010 waxay soo saartay isku dhaafkeedii ugu horreeyay iyadoo loo adeegsaday active hybrid. 2013 waxay soo saartay gaarigeedii ugu horreeyay ee ku shaqeeya koronto. kadib 50 gaadiid ah ayay sanad walba u suuq geyn jirtay wadamada caalamka sida USA, Afrika, Austria iyo Bariga Dhexe.
iyadoo soo saaraysay sanad kasta gaadhi ilaa hadda oo ay soo saartay Choose your beat.